qaraabadii ma xiriirisaa aabbaha riximkiisii wixii ka soo jeeday ma xiriirisaa hooyada riximka ka soo jeeda ma xiriirisaa ma og tahayse cimri dheer iyo arsaaq waasica in laga helo xiriirinta riximka su'aashaa isweydii awlaadaada see ula dhaqantaa ma u naxariisataa ma dhaqaalaysaa ma tarbiyaysaa ma ka fekertaa saad noloshooda uga fekeraysid aakhiradooda ma uga fekertaa ilaahay wuxuu leeyahay afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malayseen inaannu ciyaar idiin abuurnay noloshaan idin abuurnay sida insaanka loo abuuray fiiri falyandur ilinsaanu mima khuliqa min maa'in daafiqin yakhruju min bayni الsulbi waاtaraa'ib waxaa lagu xusuusinayaa xog rasmi ah oo ilaahay mooye cid haysa aanay jirin xogtaasoo xasaasi ah oo khusaysa qofka bani aadamka rusushii ilaahayna uu soo dhiibay markaa warka uu siinay bani aadamkii waxaan ka abuuray biyo mani ah imisaa iyagoo nafbaxaya inta tawxiidka loo qabtay heesaya hees ile markuu caafimaadka qabo intaa hees dhegaysan jira imisoo iyagoo caafimaad qaba xaaraan iyo balaayaa ku dhex jiray oo markuu naf baxayay wixii uu ka shaqayn jiray naftu kaga baxdo tawxiidka la qabadsiin waayo marka haddaynu rabno in tawxiidka carabkeenna la qabadsiiyo kulle waa dhimanaynaa shaki ma lehe oo si fiican u dhimanno inta aynu noolnahay diin iyo akhlaaq wanaagsan waa in layna ka helaa muuminiin miyir qabta aynu noqonnaa alla ka dambeeya xishoonaya ilaahay ku xidhan akhlaaq wanaagsan diintu run ay ka tahay markaasaa ilaahay kuu gargaaraya subxaana wa tacaala meel kastood joogtid ilaahay ka cabso gurigaaga suuqa goobta shaqada waxbarashada keligaa markaa tahay ilaahay ka cabso cabsidaad ilaahay ka cabsato dantaada adduuniya aakhira way hagaagaysa waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay cabsidiisa waa isu dardaarmayna waxaa dadka wax badan kaga xumaadaan inuu ilaahay ka cabsan waayo subxaana wa tacaala waxaa qofka wax badan ugu hagaagaan ilaahay inuu ka cabsado subxaana wa tacaala midda kale si guurku u bato ogolaada 2 iyo 3 iska ogolaada dhibaato ma laha maxaa yeelay sharcigu uu baneeyay soo ma yaa haddii adigii ka waran aad ninkii fiicnaa keligaa haysato walaashaana halkaas soo taaganta subax kasta dee walaalnimadu waa lisu gargaaraa moogta saxaabadii waa garanaysaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadalkaa markaa yidhi aad baa u buuqdeen raalli iska ahaada laakiinse arrintaasi waa diine isku qalqaaliya oo gabdhaha haddaad doonto adigu ninkaaga ha u keenine bal mid kale xitaa u gee oo maaragtay ha u guurso laakiin guurka laga shaqeeyo danteennaa ku jirta adduuniya aakhiro haddaad guursatay diintaada kala bar waa ku dhowrsan tahay kala barka kale ilaahay uga cabso subxaanahu wa tacaala